xafladii quruxda badneed. Ber waxaa jiri jiray laba bakayle oo saaxiib ahaa, iskuulkana wada aadi jiray. Magacooduna wuxuu kala ahaa Miimi iyo Maaya. Imtixaankii iskuulka Miimi way ku baastay, waxaanay gashay lambarka 1. Miimi hooyadeedna way faraxday, waxaanay u qabatay inanteedii xaflad. Xafladda waxay ugu samaysay beer aad u qurux badan, iyadoo u yeedhay faamilkii iyo asxaabtii ay lahayd Miimi. Miimi hooyadeed aad ayay meesha u qurxisay, iyadoo ku qurxisay biibiilayaal oo keentay cuntooyin aad u kala duwan oo macmacaana. Dhammaan xayawaanadii lagu casuumay xafladda way ka soo qayb galeen, laakiin Miimi saaxiibadeed Maaya may imanin. Miimi waxay soo wacday gurigii saaxiibadeed si ay u tiraahdo dhaqso u kaalay xafladda, ilaa hadda maad imanine. Laakiin Maaya hooyadeed ayaa telefoonkii ka qabatay oo ku tiri Miimi way xanuunsanaysaa, xumadeeduna aad ayay u sarraysaa, mana soo bixi karto. Miimina way murugootay, iyadoo u ducaysay saaxiibadeed Maaya, Ilaahayna caafimaad u weydiisay. Miimi waxay aad u rajaynaysay oo aad u jeclayd inay la joogto saaxiibadeed Maaya si ay farxaddeedu u dhammaystirmato. Miimi waxay rabtay saaxiibadeed iyo iyada iyo xayawaanada kale xafladda ka soo qayb galayba inay waqti fiican wada qaataan, macmacaankana wada cunaan. Xayawaanadii xafladda joogay waxay soo galeen qolkii cuntadu taalaysay u soo cunaan macmacaanka. Markii la soo galay qolkii waxaa la arkay keegii in badh laga jaray, cuntooyin badan inay mid walba badh ka maqan tahay. Miimi way xanaaqday, waxay istiri walaashaadii yareed ayaa cuntadii ku ciyaartay. Walaasheedii yareed ayay u tagtay si ay u soo weydiiso. Hooyadeed ayaa ku tiri walaasha may samaynin. Miimina intay yaabtay ayay tiri hooyo hadda ayaa sameeyey oo cuntada mid kasta qayb ka gooyey. Miimi hooyadeed waxay ku tiri aniga ayaa mid kasta qayb ka gooyey si saaxiibadaada aynu ugu geyno aan imanin xafladda. Miimina intay faraxday hooyadeedna hab siisay ayay tiri hooyo waan kuu mahadcelinayaa, waad ku mahadsan tahay inaad saaxiibadayda aan jecelahay xasuusatay oo iyadana cuntadii ay cuni lahayd meel aad u dhigtay. Hooyo macaane aad baad u mahadsan tahay, khayr badan Allaha ku siiyo. Dhammaan xayawaanadii iskugu yimi xafladda way ciyaareen, cuntana way cuneen, waqti fiicanna way ku qaateen xafladdii loo dhigay Miimi. Iyagoo aad u faraxsanna way ku kala tegeen xafladdii oo mid walba gurigiisii ayuu tegey. Markii ay dadkii kala tegeen, Miimi waxay qaaday alaabtii ay ugu tala gashay saaxiibadeed. Iyadoo Miimi tagtay gurigii saaxiibadeed siday u soo booqato una siiso alaabtii ay ugu tala gashay. Miimi waxay u keentay saaxiibadeed cuntadii xafladda lagu cunay iyo ubax ay ugu soo dartay. Saaxiibadeedna way u ducaysay, waxaanay u rajaysay caafimaad. Maayana aad ayay ugu faraxsaneyd inay saaxiibadeed soo booqato. Miimina kumay dheeraanin inay la joogto Maaya, waayo marka aad soo booqanayso qof xanuunsanaya laguma dheeraado ee markiiba waa laga tagaa, waayo qofka xanuunsanaya wuxuu u baahan yahay inuu nasto si uu caafimaadkiisu ugu soo laabto. Umana baahna in lagu rido xasilooni darro iyo buuq in lagu furo. Buuqa iyo hadalka badanna qofka xanuunsanaya waxay u keenaysaa inuu nasan waayo. Laakiin Miimi way taqaanaa qofka xanuunsanaya marka la soo eegayo in markiiba laga laabto. Gurigii hooyadeedna way ku laabatay si u caawiso hooyadeed hawshii guriga intii hadhay ula qabato. Masha Allah caruurey fariido Allahumma baarik.